سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا ماموسكا يا كرامة مدنات بانيني سلاني وقت وعن ينور الفيعان بانيني رجيني ناكسور دوادا كنال كينا عافيماتك يا دريالك عافيماتك waxaynu muuqaalkan ku wada wadaagi doonaa 5 iskaga badbaadaysa kaliya xanuunka oo aafo runtii iyo xanuun ku fara badan guud ahaan gayga Soomaaliga gaar ahaan bulshadeena ayuu xanuunkani aad ugu badan yahay. haddaba 5tan arrimood ayaad kaga badbaadi doontaa qodobka koowaad aynu nimaadno. waxaad joojisaa inaad isticmaasho dawooyinka aadka u faraha badan gaar ahaan dawooyinka la yahay painkillerska inaad iska dayso ayaa ku qurux badan xilliga aanad u baahnayn ama aslanba inaad yaraysato isticmaalkooda. inaad consumption badan ku samayso dawooyinkaas noocyadooda kala duwan waxay kugu abuuri karaan inay galyahaaga dhaawacaan, inay beerkaaga dhaawacaan, isla markaa inaad la qabatinto oo xanuunkaad u isticmaalaysana aanay waxba ka darin. sidaa daraaddeed waxaynu aad ugu boorinaynaa bulshada waa qodob baabi'in kara ama kidney failure wax la yahay kugu abuuri kara ama kidney damage kugu abuuri kara inaad markaa iska joojiso ayaynu aad ugu adkaynaynaa bulshadeen. qodobka labaad isticmaal biyo fara badan. cabitaanka biyo badan aad isticmaashaa waxay kuu saamaxaan kelidaada inay filtration ku sameeyaan, inay dhaqaan oo nadiifiyaan, in xididada iyo tiftaafyada dhiigga qaada ay ahaadaan kuwa furan, inay kaadida ay furfuraan oo waxyaabaha inta badan kaadida lagu sii daayo inay markaa ay ka dhigaan mid diluted ah oo markaa ay ahaato mid khafiifa oo aan kelida dhibaato u geysanayn oo markaas aan qofka ibni aadanka aan jidhkiisa dhaawacayn. kalideena biyaha cabitaanka aad bay ugu badan yihiin waa ugu wacan yihiin marka biyo badan inaad cabto waa muhiim. qodobka saddexaad waa inaad qofku socdo oo ama uu exercise sameeyo. haddaad socoto ama aad exercise samayso xusuusnow kelyahaagu aad bay u badbaadi doonaan, waxay ahaan doonaan kuwa xilli kasta iyo waqti kasta shaqaynaya. laakiin haddii socodku kugu yar yahay oo marka aanad ahayn qof aan soconayn taasina dhibaato ayay keeni kartaa. inaad aad u socoto waa muhiim ama inaad sportis ahaato exercise-ka ciyaartaa kelidaada waxay ka dhigayaan mid caafimaad qabta oo caafimaadkeedu aad u fiican yahay oo aynu ku talinayno bulshadeenu inay arrintaa ay dhug weyn u yeeshaan. qodobka afraad haddaynu ku soo dhowaano waa inaad aad iskaga maydhaa qudaarta noocyadeeda kala duwan. hadday noqoto vegetableka iyo fruitiska iyo crobiska iyo seeds noocay doontaba ha ahaatee inaad adu maydho waxaa jidhkaaga gelaya aad isticmaalaysa waa muhiim. inta badan qudaarta qeerinka lagu isticmaalo ayaad aad u maydhi doontaa sida tufaaxa iyo waxyaabaha inta badan cinabka ee qeerinka lagu isticmaalo ama qudrada lagu dulgoogo cuntada lagu dulgoogooyo ee aan dabka kelin inaad aad u maydhaa waa mid aynu bulshahaan aynu aad isku xasuusinayno oo runtii muhiimadeeda leh. qodobkaasina dabcan inaad meel ku qorataa waa muhiim. qodobka ugu dambeeya waa inuu qofku ka fogaado inuu muddo dheer fadhiyo. qofka oo inta badan muddo dheer fadhiya keliyihiisa dhaawac bay ku keeni kartaa, waxay ku abuuri kartaa inay kelyuhu ay shaqadooda gabaan. isla markaa qaabka qofku uu fadhiyaa waxay curyaaminaysaa systemka kelida, circulationka dhiigga intuba inay ahaadaan kuwa daciifa. unugyada inta badan fadhiyaya kelidu ay leedahay ayaa waxay noqonayaan kuwa damage garoobaya, sidaas ayaa kelidina dhaawac ku gaadhaya oo dhibaatadu ay ku badanaysaa. intaas haddaynu ka taxadarno keliya caafimaad qaba oo mustaqbal leh ayaynu heli doonaa bulsho ahaan. aad baynu arrintaa iskugu adkaynaynaa. fadlan la sii wadaago u sii sheergareeya bulshadeena kale. idinkana waqti wacan iyo nolol fiican baan idin rajaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.